infrastructure ama kaabayaasha dhaqaalaha sida aan la soconnaba waxaa lagu qeexaa kuwa ugu horeeya ee mas-uulka ka ah inay fududeeyaan wax soo saarka waa kuwa isku xira maxaa la dhahaa goobta wax laga soo saarayay iyo suuqii wax lagu iibin lahaa isku xira waxaa la dhahaa infrastructure marka simbali waa kuwa ugu horeeya mas-uulka ka ah inay fududeeyaan isku xirkaas waxaa la dhahaa infrastructure waxaa jira definitionno badan oo dadka ay ka bixiyeen marka haddii definitionadaas si macquula loo soo qaato marka waa kan ugu macquulsan kan hadda annaga soo qaadanay marka waa isku xiraha ama fududeeyaha ugu horeeya ee mas-uulka ka ah inay isku xirmaan goobta wax laga soo saarayay suuqa wax lagu iibinayay laamiyadoo la dhiso ama wadooyinka oo la dhiso waxay ganacsiga ugu qayb qaadan karaan siyaabo badan ay ganacsiga ugu qayb qaadan karaan waa midda ugu horeysa waxaa meeshaas ka dhalanaya in maalgelino badan la sameeyo in maalgelinadaas badan markii la sameeyo waxaa kor u kacaya marka hore qiimihii guryahaasa kor u kacayo dad badanaa meeshaas soo degaayo kadibna meesha waxaa ka dhalanayso in ganacsiyo badan laga furo sida suuqya in laga furo isbitaallo laga furo iskuulle laga furo meesha ka dhalanayso dad badan inay meesha soo degaan oo ganacsi cusub oo hore aan u jirin oo meesha ka samaysmaa dhacayso waa waxa ugu horeeya laamiyadu soo ziyaadiyaan ay ka mid tahay wadooyinka badan ee dalka ku yaala ama gobollada dalka ku yaala ee burbursan ama aanan dhisnayn haddii dib loo dhiso waxaa ka dhalan kara waxyaabo badan oo faa'iido u leh dalka sida in ganacsiga kor oo u kaco dhaqaalihii dalkii oo kor oo u kaco GDP-ga dalkaasna ama wax soo saarka dalkaasna kor oo u kaco waxaa ka mid a in maxaa la dhahaa dadka ay ku dhiiradaan inay gobolladii tagaan oo ganacsiyo ay kasoo sameeyaan oo beerihii maxaa la dhahaa dadka ku dhiiradaan inay wax soo saarka dalka beeraha kor ee u qaadaan in maxaa la dhahaa kalluunkii ee dalki in wax soo saarkiisa la badiyo taas waxay keenaysaa marka in wax soo saarka dalka oo kor oo kaco waxaa kaleento waxyaabaha kaleento oo soo zaa'idinaysa waxaa ka mid in magaaladaas ka warhayso waxaa ka jira jaam badanaa ka jira dad badanaa soo galay magaaladii haddii wadooyinkaas loo sameeyo waxaa laga yaabaa dadkaas inay culayskii badnaa magaalada ka qaadaan ee dib ugu laabtaan gobolladii dalka bacdamaa wadooyinkii loo dhisay loo fududeeyey isu socodka loo fududeeyey waxaa laga yaabaa dad cusub oo maxaa la dhahaa magaalada deganaa inay doorbidaan inay halkaasi degaan maadaama meeshaas ay zaxmad yar tahay buuq yar tahay jabigeedu uu yahay jabi maxaa la dhahaa iska degan uu yahay halkaas kasoo shaqo tagaan marka meeshaas waxay soo ziyaadinaysaa kor u kac dhaqaalay soo ziyaadinaysaa si loo helo wadooyin badan oo dhisan bulshada waxaa looga baahan yahay marka hore inay midow sameeyaan ama ay isku xirmaan ay noqdaan dad iska warqaba ay noqdaan dad maxaa la dhahaa dan guud ka dhaxayso waxa ugu horeeya waxa waaye horta inay canshuurta bixiyaan canshuurta si saxan ay u bixiyaan dowladdiina canshuurtaas wax ugu qabato dib ay ugu soo celiso si saxan iyadan ay u maamusho midda kale waxay samaysan karaan dadkaas inay isu tagaan oo si iskaa wax u qabso ah ay wadooyinka ku dhistaan bacdamaa dowladdu ayna awoodin in wadooyin badan ay dhisto dhaqaalaha dowladda hadda gacanta ay ku hayso waa kuwo maxaa la dhahaa iska ka yimaada dalal shisheeye ka yimaada waana dhaqaale iska liito waaye wadooyinka dalka o dhanna laguma wada dhisi karo waxa keliya bulshada ay samayn karaan waxa weeye inay si iskaa wax u qabsaa wax u dhistaan ganacsatadii ay isu yimaadaan ay ka hadlaan danta guud ay samaystaan waxa iyaga maxaa la dhahaa danta guud wax ugu tari kara ay ka tagaan danaha gaargaarka ah marka bulshaduna waa si lamida canshuurta si saxa inay u bixiso iskaa wax u qabsanaya dalkooda ku dhistaan wadooyinka dalkoo la dhiso waxay ka qayb qaadanaysaa in dalxiiskii oo kor oo u kaco dadka gudaha waddanka ku noolaay dalxiisyo badan sameeyaan gobollada dalka tagaan sida ka warhayno dalkeenna wuxuu leeyahay goobo qurux badan oo istaraatiiji oo dalxiiska ku habboon uu leeyahay sida badaha beeraha buuraha meelahaas oo dhan
marka haddii wadooyinkaas la dhiso waxay keenaysaa in dadka waqtiyadooda ay kaga faa'iidaystaan jaaniska ay leeyihiin kaga faa'iidaystaan inay dalxiisi ku tagaan bacdamaa wadooyinkii si fudud ay halkaas ugu tegi karaan si dhab yar ay ugu tegi karaan waqti yar ay ugu tegi karaan marka waxay keenaysaa in meeshaas dalxiis badan oo ka dhasho dalxiiskaasna oo sababo in dad ajaanib ah ay kusoo dhiiradaan inay dalka usoo dalxiis tagaan meeshaas waxaa ka abuurmaysa ganacsiga ka abuurmaayo bacdamaa dalxiisayaasha ay u baahan yihiin waxyaabo badan ay u baahan yihiin inta ku jiraan inta ay ku guda jiraan dalxiiskooda waxay keenaysaa taas in dhaqaalihii dalkii oo kor u kaco ganacsiyo badan ay sameysmaan marka dalxiiska muhiim uu yahay wax soo maxaa la dhahaa kor u kaca dhaqaalaha dalka aniga ahaan waxaan ku soo biirinayaa in bulshada mar walba ay ka maxaa la dhahaa muhiimadda ama doorka ugu horeeya ay siiyaan danta guud danta guud oo aanan hagaagin dan gaar ma hagaagayso bulshadu inay midoobaan ay isu tagaan ay ka hadlaan maxaa noo dan ah sidee dalkan kor ugu qaadi karnaa in dadkii lacagta haystay ama ganacsatadii ama kuwa qurub joogta dalkooda dib ay ugu soo laabtaan maalgashi fara badan ay ku samaystaan ay dhisaan kaabayaasha dhaqaalaha ay dhisaan ganacsiyo badan ay sameeyaan shaqo abuur badan ee dadkooda ay u sameeyaan maalgelin badan ay sameeyaan ay iska daayaan lacagahan ee meelaha gashanayaan oo macnaha bangiyada ay dhiganayaan ee lacag ka soo saaraan oo maxaa la dhahaa ay ku dhiiradaan dalkooda inay maalgashadaan haddaynan ku dhiirin dalkooda inay maalgashadaan cid kale oo maanta ajnabi ah inay imaato dalkan ma ku dhiiranayso marka waxa ugu horeeya aniga aan ku biirinayo waxay tahay in dadku ay aaminaan dalkooda ay aaminaan dadkooda ayna isku dayaan inay ayaga yihiin kuwa ugu horeeya ee dalkan wax soo saarkiisa ama kobiciisa dhaqaalaha dhinac walba ay ahaato ayaga ay ka ayaga macnaha mas'uuliyadda ugu horeysa ayaga ay leeyihiin marka aniga taasaa soo jeedinaa